dambeyn beesha facaweyne ciise ayaa gacanta ku dhigtay gantaalo masaafo ahaan gaaraya 500 oo kiiloomitir iyada oo la aaminsan yahay in gantaaladan si hoosa beesha loo siiyay haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa faahfaahinta iyo macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan halka gantaaladan laga keenay halka ay yaalaan iyo waxay ka bedeli karaan jihada dagaal ee u dhaxaysa ciisaha iyo samaroonka qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona suldaanka guud ee beesha Samaroon oo cod jilicsan uga dalbaday beesha Ciise inay u sii daayaan maxaabiis ay ka hayaan oo beesha Ciise ay gacanta ku hayaan haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa calacalka suldaanka guud ee beesha Samaroon oo gaaray halkii ugu sareeyay qodobada kale aan ku hayo waxa qayb ka noqon doona garaad Cabdullaahi garaad Salebaan iyo garaad Jaamac garaad Cali oo maanta u anbabaxaya furimaha dagaalka gobolka Sanaag qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordhayaan saaxiib yaaladiin faahfaahin doona ee soo dhawaada adeeta markii kuugu horeysay ku sali doonta dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay aragtidaadana qaybta commentiga kaga dhiba sida u aragtid xiisada dagaal ee Samaroon iyo gudubirsaha iyo sida loo xalin karo qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa ugu dambeyn beesha Facaweyne Ciise waxay heshay wixii ay ku taamisay oo ah gantaalo masaafo ahaan gaaraya 500 oo kiiloomitir waxaan haddaba helay muuqaalo caddayn ah oo muujinaya gantaalahan oo tijaabo ahaan loo tijaabiyay iyada oo lagu tijaabiyay dhul masaafo ahaan 1 kiiloomitir gaaraya beesha Facaweyne Ciise muddo ay dawladda Djibouti ka dalbatay in la siiyo lidadka diyaaradaha qoriga la yiraahdo M30 iyo qoriga dhuumaha fara badan leh kaasi oo la aaminsan yahay inay wax weyn ka bedeli karaan fagaarayaasha dagaalka si aan warkan u xaqiijiyo waxaan la xiriiray ila kala duwan oo beesha Ciise ah iyo xataa mas'uuliyiin ka tirsan Djibouti dhammaan waxay ii sheegeen in hubkan uusan jirin oo ay wax qarinayaan laakiin baaris hoosaad aan sameeyay iyo dabagal aan sameeyay ayaan ku ogaaday in ku dhawaad 7 xabbo oo ah lidadka masaafo ahaan gaara 500 oo kiiloomitir gacanta loo geliyay beesha Facaweyne Ciise gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran hubkan waxa la aaminsan yahay inuu wax weyn ka bedeli karo fagaarayaasha dagaalka sidaas si lamida waxa la aaminsan yahay inuu wax weyn ka bedeli karo xiisadaha ama xiisada u dhaxaysa beelaha gudubirso iyo sidoo kale Ciise beesha la yiraahdo Samaroon iyagu maalmihii la soo dhaafay waxay ku faanayeen inay heleen qoriga la yiraahdo M30 iyo qoriga la yiraahdo Chantachikuwe sidaas si lamida hadda in beesha Ciise ay soo bandhigaan ayaa laga cabsi qabaa iyaga oo fagaarayaasha dagaalkana lagu kala bixi doono hadii hubkaasi la keeno fagaarayaasha dagaalka yani tusaale ahaan qofka ku sugan Buurta City ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo qofka ku sugan xeebta lagu haye gantaalkaasi si toos ay u gaari karaa halkaasi yani iyadoo dagaal la gelin ba ciidanka si fudud loo duqeyn karaa hubkan hadda la leeyahay masaafo ahaan 500 kiiloomitir ayuu gaaraya oo beesha Ciise ay gacanta ku dhigtay xataa Somaliland ma haysato sababtoo ah hubkan waa hubkii Faransiisku uu farsameeyay Djibouti gacanta loo geliyay kadibna Djibouti ay qabiil ahaan u siisay beesha Facaweyne Ciise horta muhiimadu waa inta isla fahmo in hubkan uu sanahayn hub ciyaara yani hub meel inta la iska keeno dagaal iskaga adeegsado inuu sanahayn hub laga taxadiray gacanta loo gelinayo amni ahaan hubkaas gacanta miyuu ka bixi karaa sidaas lamida ma la basaasi karaa hubkan iyo xataa waxyaabo la cayna horta tan iyo markii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland nimayaha Djibouti waxay qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo amnudid inay Somaliland ku cadaadinayaan sida hadda u hubeeyeen yani sida u hubeeyeen beesha Ciise Djibouti aqli gal ma aha qoriyaha daruuriga u dhaca hubka noocyadiisa kala duwan sirdoonka hadda xal waxaan idin la wadaagay in gaari cadhameelle ah gacanta lagu dhigay habeenkii ka soo horeeysan waxaan idin la wadaagay laba gaari inta la qabtay in hub looga shakiyay laakiin markii dambe la ogaaday inay raashin iyo shidaal sideen yani ilaha sirdoon ee gaari walba meeshu maraya in la ogaado hubka uu wado sidee ku heli karaan beel aan dawlad ahayn yani ciidan dhisan aan lahayn sirdoon aan lahayn isgaarsiin aan lahayn sidee ku heli karaan ma heli karaan runta marka aan isku sheegno Djibouti ayaa si hagar la'aaneed u taageeraysa beesha Ciise nimayaha inay Djibouti taageerto beesha Ciise aan waa ku taageersanahay
sababtana waa idiin sababaynaya beesha la yidhaahdo ciisuhu waxaa loo diiday xaqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen inay soo bandhigaan xaqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen inay soo bandhigaan baa ciise loo diiday waana xeerka buugga ciise waxay rabeen inay ku soo bandhigaan sirac waa loo diiday waxay rabeen inay ku soo bandhigaan luuhayo waa loo diiday hadda waxaa la rabaa buurta city inay ku soo bandhigaan in isuritaan lagu sameeyaa la rabaa niman yahow gudubursuhu wixii ay tabanayaan waa meesheeda soomaalidu waxay halkaa ku soo gaartay wixii tabasho ah in geed hoostii wada hadal iyo walaaltinimo lagu xaliyo ciisuhuna af shiinees kuma hadlayaan gudubursuhuna af hinduu kuma hadlayaan waxay ku wada hadlayaan waa af soomaali waa la wada hadli karaa wixii jirana waa laga hadli karaa laakiin baa jirta laakiin gudubursuhu maba rabaanba maba la tusi karaba xeer buugga ciisaa lasoo bandhigayaa lamaba tusi karaba gudubursuhu waxay leeyihiin xeer buugga ciise yaa xaq in la soo bandhigo horta yaaba xaq see loo soo bandhigi karaa bay leeyihiinba dee taas waa dulmi haddii xeerka buugga ciise ay ku jiraan si fiican hadalkayga u dhegeysa haddii xeerka buugga ciise ay ku jiraan waxyaabo ay tabasho ka qabaan beesha samaroon ciisaha waa in inta lala hadlo la yidhaahdo xarafkan iyo xarafkan iyo xarafkan iyo xarafkan iyo xarafkan ha laga saaro xeerka si walaaltinimo ah kadibna lasoo bandhigo laakiin bataatanba maba soo bandhigaysidba taas dee waa gardarre aan geedna loogu soo gamban ciisuhu marka inay ishubeeyaan hub fara badan soo gataan hub fara badan helaan hub fara badan ay meel walba u galaan siday u heli lahaayeen ciidankii ciisaha ee joogay dowlad deegaanka ilaa etoobiya dhan la soo geliyay gobolka udal adeer xanaaq baa ka keenay dherigaba karkarka waxaa ka keenay waa kuleylka nimanka la yidhaahdo ciisaho wallaahi waxaa ii muuqata hadda siday wax ku socdaan haddaan la qaboojin waxaa ii muuqata waxaan arkaa waxaa ii iftiimaya nimankii ciise ahaa oo qabsaday boorame gudubirsiyi oo lagu bacsanaya bannaanka magaalada saasaa ii muuqata yacni hadda siday wax ku socdaan haddaan xal loo helin cabdiraxmaan ciro qadiyado kale uu iskaga mashquulsan yahay waa in la helo marka dad ka madax bannaan qadiyadahan hadda laysku hayo waa in la helo waa in la helo wax xal u noqon kara waxyaabahan laysku hayo waa in la helo wax qaboojin kara xiisadan waa in la helo dad dhexdhexaada oo arrimahan markay timaado gunta inta u xirtaan arrimahan soo gabagabayn kara laakiin ninka cabdiraxmaan ciro la dhaho nin xaajada runka maaha madaxweyne ku-xigeenkii somalilan oo waxaan u jeeday boorama jooga oo la kulmaya ugaaska suldaanka guud ee gudubirsi waxay ka wada hadleen waa dagaal iyo in la difaaco beesha gudubirsi wax kale maaha in ismaaciil cumar geelo uu hub siiyo madaxweynaha jabuuti inuu hub siiyo beesha ciise xaq buu u leeyahay sababtoo ah somalilan waxay rabtaa inay siiso gudubirsaha hub runtaa laysku sheego anigu intii aan baari samaynayey iyo intii aan dabagal ku waday waxaan oo dhan waxaan soo ogaaday nimankan la yidhaahdo ciisuhu siday u diyaar garoobeen weligood uma diyaar garoobin waxayna diyaar u yihiin inay iska celiyaan cid walba oo ay shar u arkaan cid walba oo ay u arkaan inay caqabad ku yihiin noloshooda cid walba ay u arkaan in ay xasiloonidooda wax u dhimayso cid walba ay u arkaan in xeerka buugga ciise hor ka hor imaanayso diyaar waxay u yihiin ciisuhu inta aan baarista waday in ay dagaal galaan marka haddii xaaladdu sidaa tahay waxaa looga baahan yahay somalilan saddex tusaalaan siiya somalilan ama saddex talo nimanka somalilan la yidhahda reesha isxaaq horta qadiyadda waa inay dhexdhexaad ka noqdaan waa kow waa qodobka ugu muhiimsan haddaa rabtid laba qabiil in aad kala dhex geshid waa inaad adigu dhexdhexaad tahay gudubirsahana aadan la jirin ciisahana aadan la jirin midda labaad waa in xeerka buugga ciise lasoo bandhigo iyada oo laga saarayo waxyaabaha tabashooyinka keenaya horta goormaa ciisaa lala hadli karaa waa markii xeerka buugga ciise lasoo bandhigo qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsanna waxaa waaye ciidanka militariga somalilan ee shaatiga militariga intay iska bixiyeen xiranaya shaati kale oo qabiilaysan
وإن ملتريga Somaliland aysan ku dhex milmin qabiiladan isdagaalaya qabiiladan isku durbaantumanaya waa inaysan Somaliland ku dhex milmin taladaas Somaliland hala gaarsiiyo qodobka intaasaan ugu gudbaya waxaan kale oo aadayaa qodob kale oo isna muhiima suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa la sheegay in uu dalbaday in la sii daayo tira maxaabiis ah oo 5 gaaraysa oo lagu qabtay tuulooyinka Heemaal iyo Haraas dagaaladii ka dhacay dabcan san idin sheegay oo aan horay warbixino hore idinku sheegay nimankan la yiraahdo ciisuhu aad buu u diyaar garoobeen taasoo keenaysa inay gurmad helaan ciidan dagaal gala la helo ciidan markii loo baahdo kayda la helo marka suldaanka guud wuxuu warqad u diray ama warqad u dhiibay mid kamid ah odayaasha dhaqanka isaga hoos yimaada waxaana la gaarsiiyay warqadaasi madaxweynaha dawladda deegaanka sidan xogta ku helay Mustafa Cagjar ninka la yiraahdo isaga laftirkiisu dadaal buu bixinayaa oo wuxuu rabaa in xaaladda in meel kale xal kale loo helo oo jigjiga lagu wada hadlo ayuu rabaa Cabdiraxmaan Cirana taas uu ka cararayaa wuxuu leeyahay jigjiga lagu hadlayo ma jirtee waa in si hoos xaaladda loo qabuujiyo xogaha iyo macluumaadkan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay ay jireen dadaalo xal loogu raadinayo waxyaabaha la isku hayo oo ay ugu weyn tahay arinta la xiriirta qadiyada ciisaha iyo Samaroonka sidaas lamid in la sii daayo 5 maxbuus oo aan ogaad in lagu hayo magaalada Diridhabe xogaha iyo wararka la helayo waxay tilmaamayaan in dhammaan qadiyadahaas iyo kuwa kale oo muhiima ay xaaladda dabka cidka yani waji kale u rogayaan anu u maleyn maayo nimankan la yiraahdo hadda nimankan la yiraahdo ciisuhu inay sii daynayaan maxaabiista ay hayaan sababtoo ah ninkan dee tabashadiisiiba aadba maada xal u helin tabashada ninkan uu qaba adu xal u maada heline adiga see wax lagu xalliya ayay sheekadu maraysaa waana dee wax xaqiiqo ah oo markii runta la sheega ma aragtay wax jira waaye xogta la helayo ayaa waxay tilmaamaysaa in 48 saac la soo dhaafay ay jireen xogo iyo macluumaad faahfaahsan oo la xiriira in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto ay wax badan isbedeli doonaan beesha gudubirso waxa la leeyahay iyagu in maxaabiista loo sii daayo aad bay u rabaan laakiin caqabadooyin badan baa jira oo ay tahay marka hore in xal loo helo marka hore caqabadaasi dabcan jidgooyooyinkaasi la qaado sida ay xogaha iyo wararku tilmaamayaan sidaas si lamid ah xoga iyo macluumaad kale oo aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in toddobaadkii la soo dhaafay sidaas oo kale xataa ay jireen faahfaahino iyo macluumaadyo la xiriira in xaaladdu sidan haday ku sii socoto wax badan ay khaldami doonaan oo ay wax badan isbedeli doonaan iyadoo beesha ciise hadda la leeyahay go'aano ay qaadanayso waa kuwo inaba aan caadi ahayn qodobadeena kale ayaynu markan eegaynaa iyo qodobkeena ugu dambeeya garaadada kala ah garaad jaamac garaad cali iyo garaad cabdullaahi garaad Saleebaan ayaa la leeyahay waxay tagayaan jiidaha dagaalka gobolka Sanaag halkaas oo ciidanka maamulka waqooyi bari ay ku hor fadhiyaan ciidanka Puntland iyo ciidanka la yiraahdo Somaliland xogaha iyo wararkan helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay culaysyo xoogan oo dhanka amniga ah ay ka soo kordheen deegaanadaasi iyadoo oo xogtaan helayna ay tilmaamayso in marba marka ka dambaysa laga cabsi qabo inay xaaladdu faraha ka baxdo haddii aan xal degdeg ah helin garaad cabdullaahi garaad Saleebaan dabcan isagu mowqifkiisu uu cad yahay oo tiro dhowr jeer ayuu sheegay in xaaladan isla qaboojin karo isla markaana wada hadal lagu soo dabaali karo iyada oo wada xaajood lagu dhameyn karo xiisadaha la isku hayo laakiin xogtan helnay waxa ay tilmaamaysaa in marba marka ka dambaysa jawigu isbedelayo oo xaaladuna ay si kala noqonayso ciidanka Puntland iyo kuwa waqooyi bari ayaa dabcan isku hor fadhiya deegaano fara badan oo hoos yimaada gobolka Sanaag taas ayaa la raadinayaa in xal loo helo laakiin dani ninka la yiraahdo nin waji iyo ixtiraam leh maahan waa in aan qabaa laga tashado ninkaasi oo xaaladiisa runta loo sheego oo dee wixii jira uu laga wada hadlo iyadoo aan sharciga laga gudbeen waxay ku soo kordha saaxiibayaal waa inuu wararkeena dambe haday tahay markii kugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga kaga dhiba sida uu aragtid xiisadaha beesha ciise iyo beesha Samaroon sida loo xalin karo waa maasantii saaxiibayaal sharaf iyo karaamo wadana la dhameysatay waad mahadsantahay soo dhawow maalin wanaagsan